بسم الله الرحمن الرحيم عاو waxaad kugu imaanay halkan inaan soo dhaweeyno marti sharaf oo ka timi Soomaaliya ugu horeeya wasiir ku xigeenka sportiga dhalinyarada xildhibaan wasiir ku xigeen Ahmed Umar Islaw iyo gudoomiyaha ciyaaraha fudud xiriirka ciyaaraha fudud Khadiijo Ahmed Taahir oo iyo wafdi la socdo ciyaartooy ah iyo macallimiin waxa kale oo joogo wafdi kale ka socdo maxaa Canada oo Bakin iyo hadda joogan oo jooga Muxudiin iyo waxa kale oo joogo Batuulo dad badan ayaa jooga oo Soomaaliya ka yimaaday Yurub iyo Mareykanka waxa kale oo joogo Faadimo Faarax gudoomiyaha hay'adda Hirda oo idana booqasho ku imaaday London waxa bilaabana barnaamijkii waxaana ugu yeerayaa Maxamed Cali Aanyo inuu aayadaha Quraanka nagu furo Bismillahir Rahmanir Rahim Qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم جزاك الله خير waxaa kaloo jooga ciyaartooydii hore oo Soomaaliya wiilal gabdho soo ciyaaray xafladda joogo iyo macallimiintii xulka qaranka waxa uu yeerayaa muxuu ahaa markii ugu horeyso ninka soo qabanqaabiyay xafladda tan Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ah la taliya ka tirsan wasaaradda sportiga dhalinyarada بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad caawa u soo dhaweynaa waan ugu faraxsanahay inuu nala joogo wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga Ahmed Umar Islaw oo aad aragtaan ninka dhalinyarada ah oo runtii martina u ah wadanka jalaal wasiir waxaan ku sheegayaa dadkan waa dadka sportiga wadanka ugu waaweynaa ciyaartooydii hore qaranka waxaan la joogo dad mas'uuliyiin ah hay'adaha madaxda ah waxaan la jooga dad soo ahaan jiray wasiir ku xigeenada sportiga dad magac iyo sharaf ku leh sportiga soo ciyaaray gabdhihii wiilalba oo magacyadooda hadeertaan haddaan bilaabo oo kulligood aan halkan ka wada sheegi karin laakiin wada jooga halkan maanta waxaan la jooga gudoomiyaha ciyaaraha fudud ayadana martino ah Khadiijo oo ayadana xamar ka timid oo ciyaaraha u yimaadeen iyo wafdigeeda ayada hogaaminaysa waxaan la joogta Faadimo Faarax oo ah hay'adda Hirda oo runtii halkaan la fadhiisto ayadana ka soo qeybgashay barnaamijkan marka runtii waxaan idin leeyahay dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin ciyaartooy fara badan iyo dad aad iyo aad muhiim ku ah sportiga oo meel kasta ka wado haddii aan ku sheegay wasiir wiilasha dhalinyarada ah 11 nin hadda qaarkood inta ay ka joogaan waxay ka yimaadeen Canada ciyaaraha Soomaaliya week ayay yimaadeen Batuulo iyo groupkeeda Holland waxay ka yimaadeen Holland ayay ka yimaadeen ciyaartooydii hore Saciid Ceero ciyaartooydii qaranka iyo Bakin iyo kulli ciyaartooydii hore Trabbi kulli waa in la joogaan xogayihii hore ee basketball volleyballka yaan la jooga Leila Weed yaa joogta waxaan la joogaa Maxamed Macalin iyo Abdullah Abshir groupkii basketballka runtii inta aan ka tagayna ma tago macallinkii macallin Xasan Ilina macallin John oo sportiga muddo badan wax badan u soo qabtay oo aan la hilmaami karin waan la fadhiyaa runtii oo in la xusuus baahan wiilasha dhalinyarada Instagram noo yimid dacar iyo runtii aad iyo aad ayaan dhammaantiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay si sharafta leh aad iga ogolaateen inaad nagala soo qayb gashaan inaan soo dhaweyno wasiirkeena wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga Ahmed Umar Islaw oo halkan la jooga waxaana la jooga jalaal wasiir odagay weyn inkastoo weyn ma ogola laakiin say ruushka oo nala fadhiya dhinacii fadhiya gudoomiyaha Soomaali week Shendeeq oo nala jooga Muxudiin Jaamac oo asagana ka yimid Somali National TV oo ninkaas dhalinyarada aragtaa wish Somali National TV wax meesh soo haray ma jirto amayna name it wixii magac la sheegay waa la sheegay legends caaw halkan ay ku wada joogaan marka runtii waxaan leeyahay Maxamed Cali Digay oo runtii ah nin sportiga kulliba shayga ninka noogu xiga waa asaga kulliba saa maqlay oo asaga naftigiisa dadaal badan sportiga ku haya waanadiisa iyo waxtarkiisa iyo cilmigiisa aan ka faa'iideysan asaga naftigiisa oo mar kastaba sportiga naga qabto oo maaragtay wax badan aan ka faa'iideysan workshopkiisa runtii waxaan ku dhig jalaal wasiir waxaan rabaa inaan aan warbixin ka siiyo sportiga qurbaha waa uu socdaa hal kala fiicnaado laakiin waxaad ka garan kartaa intaan qofood oo meel kasta ka timid adduunyada maanta waxa soo keenay sportiga waa qabiil ma aha runtii waxaan rabaa inaan gabdhaha aan xuso nooni iyo gabadhaas kooxan ahaan jirnay Khadiijo batroolka Chino runtii aad iyo aad soo dhaweynaya walmaami
ma hilmaamin runtii waxaan rabaa marka isboortigii weli ma dhiman waa uu nool yahay dadaal waa wadnaa inkastoo haddii kolley dhaliila iyo haddii kaleba laakiin sidaa aragtay maantana waa aragtay beryaan waa nala joogtay waa wadnaa weli meel kastana waa ka wadnaa aniga hadda Suudaan ka imaaday Finland waa ka imid weli ciyaaray waa ay socdaan qurbo joogta dadaalkii waa la wadaa weli ma la kala tegin laakiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in anaga dadaalka aan noo soo dirteen aan wax ka qabano haddii ilaahay insha allah oo aan sidaan isi ka fiicanna aan sii wadno waadna mahadsantihiin inaan kusii dheeraado ma aha aad iyo aad waxaan ku wareejinaa Yuusuf biriq waa mahadsan tahay haddana waxaa u yeerayaa gudoomiyaha Somali Week Xuseen Maxamed Xaashi dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama bacdu horta waxaan rabaa halkan aan kusoo dhaweeyo wasiir ku-xigeenka isboortiga federaalka Mr. Axmed Cumar Islow kusoo dhawow London especially maanta ciyaarihii Somali Week aad noo furteen runtii waa kaaga mahad celinaynaa runtii waxaan halkan ayadana kusoo dhaweynayaa walaashay Khadiija Aadan Daahir oo runtii ahayd waxaan xasuustaa 2015kii macnihii maraan hogaaminayay African Youth Championship baan tagnay Gabon wuxuu ahaa the only xiriir oo macnihii wiili gabar Maryan Yare iyo Maxamed runtii Khadiija ayaa soo fasaxday oo macnihii heerka gaarsiisay marka kule dadaalkooda ma yara facility ay haystaan mooyaane marka runtii Khadiija waqtigo nagu yar wallahi macnihii taamkana siiso nagu yar marka waxaan jeclaan lahaa anoo ku hadlaya magaca Somali Week dhammaan London inaan ku guddoonsiino haddii macnihii at least nagu xasuusto marka dhulka hooyo ku noqoto insha Allah ururka hadda waxaan jeclaan lahaa xogeeyaha Somali Week UK runtii Cabdirashiid Islaaw inuu asagana insha Allah inta in leeg wasiirkeena Axmed Cumar Jilo asna siiyo hadiyadii aan ugu talagalay Soomaaliga Cabdirashiid soo kacay haddana waxaa u yeerayaa agaasimaha hay'adda Hirda Faadimo Farax السلام عليكم دمانتين كلجين وحين ليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت ضد بدنا حالة تنس أرجني هدرتان عاوز أرجني هذا أقول فرح سنة وجيدين أنا أركو وحاليها وزير كحجان كسبورتي سودو أنكلها هاي أنا أقول الله مجا هيرده ومعناها إلى بيت وانصنع عيارة أبابولا عيارها دلنا يرضى وأنا كدالين وأقول فرح سنة دلنا يرضى كلا عيارها سماية وحول بعيار بدن ولا سماية دلنا يرضى بكفائدة سنة معنا ماله حدي حتى بديهين مروا بدنا ذا كفائدة سنة وحرجينا يا دين كان أنا معرت أنا عاون دونتان خديجة وهل كان شوكت أيضا مانته دلنا يرضى بدنا جرته حدي عن إسكاشنا واحد بدنا قبل كرنا ودن كم مركو حنلاقي هاي عن إسكاشنا ودن كان وحلاق قبته ماشي أنا فرينو شاكينو وحنا وبعرت عنكو كلا تجنو إسكوهم بلينا وحكفي عن أنا وإلما يركاه ملك استجوجا وحيرت بهات إن تورنمنت ير درير وحوس سمينهم وحاس وحبي ترايان وحبين كتجينا مرجو حنلاقي إن كوجو بابينا والروح والبابا هات عن وح قبنا إلهي وطول ما ينقطه وحكست ما ينقطه إسبورتيجا وهذا الآن وح إسكو فهم عن ذاتك وأن لهين قبيلة وأن لهين وحكله أنت أنا ما أنت عد تقارن ماله هذانا واسكوني من وان استعلنا هذا أرس أرجنا واسمع حبيننا محاكينا هي واسبورتي كان اسكوني من مركب الله ليال وحين كرجينا يا إن عودن كوشقينا مالك استوى نقطة دلنا يرد أنا وشقينا عن اسكو حرنانو كلا جبسنا أنت نجرت أدون كان كجرت مال بكجرت صومالي كجرت أنا عن كبحنا هدي لا يرادو وحين رجينا يا إن شاء الله خير كل جين وحين الله هاي النولاده هدي أنا أركو وجهي أنا إن شاء الله وحين كسوق يا مستر دام تونمنتنا موجود haddana waxaa u yeerayaa Cabdirashiid Xasan Xirsi oo reer Toronto ah oo meesha marti ku ah oo loo gartay inuu ka hadlo meesha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتي أد بني السلام يا سلام دكوا نوحن سيني يا سنديو قدومي سلو ويوعس مجال تورنتو وما سنتي عاصمة عاصمة. أنا وقال الله مجا سومالي من الفوتبول قدومي كورين كنا كنت فرحت بيتهاي أنا عاول كان سوي استاجو أنا أركان وسير كيجيتك ودنا يرضى هذا قصة دويني. قدوميها معوها عيارات فضل كنت فرحت بنوتها هنا كسوق بكشين مجعي صومالي عالم بلوك أنا كانتين أنت أسكيا فرحنا وفيه
marka waxaan ku leeyahay adiga waqtigaagana waa ugu mahadcelinaya runtii ninkaas odagaana hadda kahor waxaan isku soo baranay Tanzania isagoo coach ah oo waday Muqdisho City runtii dhalinyaradii uu wadana aad iyo aad ixtiraam badan bay u hayeen marka waxaan ku leeyahay marrabada barasho wanaagsan runtii aad baan u jeclaa caawa inaan arko Faadimo Hirdi ana waqti badan oo North America jooga wax qabadkeeda aan kala socdo hawada caawa inaan ku arko ku bartaa aad baan kugu farxsan runtii siday sheegtay ciyaaraha in la kala qabto opportunity-ga dhalinyarada iyo in waqtiga loo badiyo aad bay u fiican dagaal in lagu galana ma fiicna laakiin in week soo socdana kuwa kala la qabto faa'iido waxay u tahay youth-ka iyo dhalinyarada u tahay markii yaa loo arag xumaan kala qabashada because UK 200 iyo intaas ka badan baa ku nool haddii week la qabto week laakiin waxaa fiican sidii guddigaani waxay in la isku tago xiritaanada la isku yimaado aan dagaal u dhicin marka runtii aad baa u mahadsantihiin sayga ruushka kulli ma wada sheegi karo asinu joogo sayga mas'uulka kulliga sportiga sayga ku salaamay si gaar ah ku salaamay afternoon after soo markan waxaan u yeerayaa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya marwo Khadija Aadan Taahir oo runtii ah qof wax qabad fiican leh oo u istaagay in dhalinyarada Soomaaliyeed sportka ka qabato iyadoo oo waliba ah ognahay Soomaaliya in dumarka waxba loo ogoleen dhax gashay sportiga inama ka ogeedeen ka soo dhax baxday haddana hogaaminaysa wafdiga ciyaaraha fudud bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiina waxaan si qaas u salaamayaa wasiir ku-xigeenkayga wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaan kaloon salaamayaa dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay dadkana casumay Soomaali Week oo aan leeyahay waxaan idin rajaynayaa guul aan la soo koobi karin waxaan kaloon si qaas u salaamayaa Faadmo Faarax oo dhinacayga fadhida oo ah caawiyahayga gaarka ah haddaan xiriirka ciyaaraha fudud heer aan gaarnay in aan dharka iyadana siisay aan u qaadno ciyaartooy Nairobi joogta iyadana waa u mahadcelinayaa waxaan si qaas u salaamayaa gabdhaha quruxda badan oo hor fadhiya maamo Batuulo oo iyadana meel xun nooga taala naleeyay gabdhaheena oo dhan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lijinka walaalkay macaan sayga asagana waan salaamayaa dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macallinkay macallin John yaan iloobin asagana macallin John waxaan aniga hadal badan halkan kama sii sheegayo anaga waxaan nahay bahda isboortiga wakiilkeena musarrifkan uu fadhiyaa maadaama wasiir ku-xigeenka uu fadhiyo hadal saasa igama furna meesha waxaan leenahay Somali Athletic Federation waxay idin leedahay dhammaan Soomaali weyn ay u furan tahay anaga meeshaan tagno meeshaan nimaano mucaarad ma lihin mucaarad ma qabno mucaarad ma nihin mucaarad ma qabno waxaan qofkaan aragno waa qofkeenii anaga mucaarad ma qabno mucaaradna ma lihin Somali Athletic Federation waxaaba caado u ah iyada haddii barnaamij la qabanayo ama safar la aadayo in kooxaha loo waco international hadday tahay ciyaartana qof walba Soomaali idaacadaha la fadhiisto waxaa marqaati ka ah wiish oo barnaamijyadeena inta badan ku Muqdisho yimid faafiyay qof alla qofka yimaada anaga garoonkaas oo qofkii gala waxaana loo dhiibaa garsoore shalay ninkii joogay haddii laga guuleysto asagoo 3 sano juhdi la gelinayo nin shalay baadiye ka yimid hadduu qaado anaga waxaa waay kaasaan waxaan baraynaa sida loo istaago iyo sida loo ordo juhdina aan gelinayno marka waxaan dhammaan reer UK ka codsanaynaa Somali Athletic Federation il gaar ah loo lahaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaa u yeerayaa mudane Axmed Nuur Maxamed Xaashi sayga ruushka oo muddo dheer sportka kusoo jiray Soomaaliya kasoo ciyaaray run ahaantiina ah muxuu ahaa بسم الله أرت سلامة سلامك أيدكم سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو هرت أنا واجي وراح أمين سرائنا اللي يجعلنا لكن اللي يجعلي هذا واحد ذاتي سببته مرة بمركي عن قطبة أسو استاجو سيجارة هرت اللي تحكي لي مركي أنا وحقبت لي هاي درين كده وان قبال
caawa hadda taas kolley ugama wada hadlayna meesha waxaan uga hadlaynay soo dhaweyntii wasiirka iyo gabadha ayadana xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta kubadda maxaan ilaha orodada atleetikada noo qaabilsan Khadija iyo Faadmo Faarax oo ku dadaashay wax badan qurbaha dhalinyarada joogto inay sanooyin badan miday wax ay u qabatay ay ahayd laakiin haddii dadkii dadan la wadi karin ay noqdaan gabadha xoogaa inay caajistaad moodaa iyo aniga iyo kulli guud ahaanba laakiin hadda waxaa waaye waan soo rogaan celinaynaa insha allah faadumana waan la shiraynaa waxaan leenahay sidii ay wax qabadkeeda uu ahaa wasiirkan dhalinyarada ah asagana waxaan ku faraxsannahay oo wasiir ku-xigeenka in ma aragtay dadaal iyo isbeddel mid sportska uu ka yimaado ay noqoto oo wax rasaalti ah ay ka yimaadaan ama Afrika ama maxaan dhihi lahaa adduunka qaybihiisa kala duwanba ama dadkii yani asaga iyo Khadiijo waxaan fareynaa atleetika dadkii maanta darajo maanta orodada iyo atleetikada waxa lagu ogaan karaa qof walbeeto orodada marka ay noqoto record loo qaban karaa recordkaas waxa lagu ogaan karaa ka adduunka wuxuu yahay iyo Afrika keeda waxa uu yahay nin walba dadaal markii la suubiyo waa la ogaan karaa dadka hadhowto garoomada la keenayo oo maxaan dhihi lahaa oo waqtiga ay ordi karaan mid la og yahay ay tahay aniga waxaan ahaa hadda ka hor Khadiijo la taliyaha gudoomiyaha Olombikada waa iscazilay ayaan dhaweyto markii ugu dambeysay sawiya oo iscazilna waxa ay ugu sheega markii ay dhacday ma aragtay yani arrimo badan oo hoos u dhaca dareenkeeda mid u yimid marka waxaan leeyahay Khadiijo waxaan rajaynaynaa dardaarankaas aan ku eedsida inay yeeshaa midda labaad wasiirkan yar oo dhalinyarada asagana maasha Allah waa ku faraxsanahay inuu carcar cusub iyo nidaam cusub iyo aqli cusub iyo wax walba guud ahaan mid inoo yimaado inay noqoto waa wareeji waxaan ku wareejinayaa wasiirkan ku wareejinayaa inuu asagana noo soo gabagabeeyo khudbada ayada ah insha Allah ta'ala assalamu alaykum waxaan marka hore salaamayaa dhammaan intii halkan isugu timid ugu horeyso walaashay gudoomiyaha ciyaaraha fudud waxaan sidoo kale salaamayaa wakiilka wasaaradda waxaan sidoo kale salaamayaa walaashay gudoomiyaha hay'adda hirda iyo dhammaan martida halkan kasoo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaantaas kadib farxad ay tahay inaan caawa cashadan aan idinkala soo qayb galo waxayna muujinaysaa inaad tihiin dad Soomaaliya jecel dadkooda jecel dalkooda jecel waxaana ka dareemi karaa qaabka aad ii soo dhaweyseen sidaad ii sharafteen oo habeen iyo maalin har iyo habeen aad diyaar ugu tihiin meel walba aad joogtaan inaad si wanaagsan oo sharaf leh aad ii maamustaan taasna waxaa u wacan dowladnimada aad jeceshiin marka dalkeena waxaan ugu baryaynaa insha Allah dowladdeena inay noqoto dowlad tan hadda aan joogno dalkan ka quwad badan insha Allah sidii aan jirtay si lamada inay ku soo noqoto intaas kadib sidaad ogtihiin wasaaradda dhalinyarada iyo isboortigu waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee dal leeyahay wasaaraddan waxay xambaarsan tahay 75% bulshada Soomaaliyeed waxaa lagu tiriyaa inay dhalinyaro yihiin sidaas daraadeed waxaan madax u nahay dhammaanteen bahda isboortiga iyo wasaaradaba dhalinyarada Soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan ee laga rabo inaan ka qaadanno waxa waaye inaan abuurno isdhexgal bulsho isboortigu kaliya ma ahan in kubad la ciyaaro sport la ciyaaro muhiimadda ugu weyn laga leeyahay waxa waaye bulshadu inay isdhexgasho waxaa kubadda ciyaaradadan isku af ahayn isku diin ahayn kala culture ah waxa kaliya ee ku midoobaan waxa waaye ciyaartaas ay ciyaarayaan sidaas si lamid ah anagoo hal dal ah oo hal diin leh oo hal wadan ah oo qoomiyad liiraado Soomaaliya ka soo jeedno runtii waa waxa ugu muhiimsan ee haddii anaga aan dhaxdeena haddaan heshiinayno waxaan heshiin karo waa isboorti marka bahda isboortigu meel walba ay joogaan waa saaxiibo halkan waxaa fadhiya odayaashii hore ee soo ciyaaray qaranka u soo ciyaaray soo halgamay ilaa haddana waa saaxiibo waxaa laga yaabaa 40 sano 50 sano inay is yaqaaneen welina isu xiran yihiin kala qabiil ay yihiin reerkoodu is diray laakiin waxa ayagu isku xiraya waa isboortiga marka waxaan leeyahay isboortigu waa wax aad iyo aad u fiican bulshadana anfacayo wuxuu baabi'iyaa uu ka hortagaa isirnacaybka isboortigu wuxuu ka hortagaa qabyaaladda isboortigu wuxuu ka hortagaa qoqobnaanta marka bahda isboortigu hadday tahay kubadda cag hadday tahay kubadda koleyga hadday tahay ciyaaraha fudud ciyaar walba la ciyaarayo waxaan aaminsanahay waa aaladda ugu muhiimsan ee bulshada isku xirto marka waxaan leeyahay
sidaad hadda ugu dadaasheen oo aad ciyaaraha da-yarta aad qabateen si lamid ah inaad midii qarankana aad ugu samaysaan wasaaraddana aad u caawisaan dowladdeenu waa curdun soomaaliya hadda cageeda ku istaagaysaa haddaan aaminsanahay in qabiilkii laga baxay haddaan aaminsanahay idinkuna aad aaminsan tihiin in dowladnimadii la gaaray wax badan oo qaladaada waa jiraan laakiin waxaa qaladaadka lagu sixi kara waxa waaye in qaladka jiro la isu sheego si loo saxo marka anigu idinkama weyni idinkana qaranka kama weynidin dowladdan waa dowlad shacab ah shacabkaana u adeegaynaa idinka aad kow ka tihiin waxaana rajeynayaa insha allah sidiina si la mid ah sida halkan aad isugu soo baxdeen sport u samayseen adinkoo xor ah oo aadan qalqal amni dareemin dalkiina inaad imaataan isla markaasna sportiga ciyaartaan annaga ka wasaarad ahaanna gogolan idin fidinaynaa waana idin soo dhaweynaynaa dalku waa dalkiini sidaad halkan farxadda aad ugu dareenteen waxaan rajeynaynaa insha allah soomaaliya inaad farxad ugu dareentaan marka mar rabo warka inaan idinku dheereeyo waa habeen farxad leh aada ugu mahadsantihiin sida karaamada leh oo sharafta leh aad dowladdiina soomaaliyeed usoo dhaweyseen waxaan aaminsanahay inaan ahay qof wanaag aad ugu soo dhaweyseen waxay ka tarjumaysaa inaad dalkiina jeceshihiin marka sharafay ii tahay dad muwaadiniin ah oo dalkooda jecel inaan la joogo agtiinana waxaan aaminsanahay inaan aamin ku qabo marka aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi